Waan idin salaamay asxaabteyda soo dhawaada. Fiidiyowgii hore waxaan uga hadalnay marxaladda ugu horeyso oo ah 3 bil ee ugu horeyso xaaladda ay hooyada mareyso, uurjiifka marxaladaha kala duwan oo marayo, waxyaabaha hooyada looga baahan yahay iyo isbedelada ku imaanayo. Hadduu Alla weyne raali ka noqdo, maanta waxaan ka hadlaynaa bisha 4aad, 5aad iyo 6aad hooyada waxa ay la kulmayso, xaaladaha ay mareyso, uurjiifka isbedelka ku imaanayo, waxaana loo yaqaanaa second trimester. Haddii aan ku horeyno hooyada laga soo bilaabo bisha 4aad, 5aad iyo 6aad waa xilli ay kasoo gudubtay marxaladii adkeyd oo ahayd 3 bil ee ugu horeysay. Waxay ka nasanaysaa ama ka yaraanayo wareerkii, lalabadii, waxyaabihii ay dareemaysay oo idil. Sidoo kale waxaa meesha ka baxayo cuntooyinkii ay nacday iyo kuwii ay jeclaatay. Waxaa u soo laabanayo oo jawigeedu wuxuu ku soo laabanayaa sidii hore. Wax kasta caadi ayay ku soo laabanayaan inta badan. Balse waxaa jirayo isbedelo kale oo ku imaanaya hooyada. Waxaa ka mid ah miisaanka hooyada 3 bil ee dhexe ee uurka. Waa xilliga ugu badan ee hooyada ku imaanayo inuu miisaankeeda kordho. Isbedel xoog badan ama si dardar leh inuu miisaankeeda ku kordho ayaa imaanaysa. Sidoo kale waxaa imaanaya inay inta badan ay dareento energy la'aan ama tabar yari. Waxay maanta u baahanaysaa inay cunto qaadato ama ay wax cabto oo waxaa ku yaraanayo energy-ga. Sidoo kale waxaa meesha ku sii jirayo ayadana daalkii oo mar walba waxay dareemaysaa daal. Waxaana ku soo kordhayo culays oo aysan hore u dareemi jirin ayay dareemaysaa. Waxaa dhici karta oo inta badan hooyooyinka ay isku arkaan calaamado loo yaqaano liin kara oo ku sameysmayo hooyada. Sidoo kaleeto maqaarkeedii wuu isbedelayaa oo wuxuu noqonayaa mid sensitive ah qoraxda. Isbedel muuqaal ahaaneed ayaa ku imaanayo. Waxay dareemaysaa kabaabiso ama kabaabiyo joogto ah, taas oo sababteedu ay tahay culayska uurjiifka ee ku soo kordhay. Xalkeedana wuxuu yahay inay hadba dhinac ay isku gediso si kabaabiyada ay ugu yaraato. Waxyaabaha kale ee hooyada dareemaysa waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqa uurjiifka. Uurjiifka wuxuu sameynayaa dhaqdhaqaaq zaid ah. Hooyada hadday tahay ugub ama cunugii ugu horeeyay haduu yahay, waxaa la dhici karta inay dareento dhaqaaqa uurjiifka isbuuca 19aad, midka 20aad ilaa inta u dhaxeysa isbuuca 26aad. Intaa inay ku dareento. Balse hadday hooyada dhashay oo dhowr cunug hore u soo dhashay, waxaa dhici karta isbuuca 13aad, 14aad, 15aad meelahaasba inay dareento dhaqaaqa uurjiifka. Sidoo kale waxaa jiro isbedelo ku imaanayo uurjiifka maadaama aan horey u soo sheegnay in 3 bil ugu horeyso xubnaha iyo qaabka uurjiifka dhan uu sameysmayo. Isbuuca 13aad wixii ka dambeeyo waxaa bilaabanaya inuu dhaqdhaqaaq sameeyo, qashin saar inuu sameeyo, in hooyada waxyaabaha ay qaadanayso ama ay cunayso uu la qaybsado iyo wixii la mid ah. 3 bil ee dhexe waxaa kaloo la ogaan karaa uurjiifka waxa uu yahay wiil miya mise gabar. Ayadana waa la ogaan karaa oo haddii computer la saaro ultrasound wuu sheegayaa uurjiifka genderkiisa ama waxa uu yahay, inuu yahay wiil ama inuu yahay gabar. Haddaba 3 bil oo dhexe hooyada maxaa looga baahan yahay inay sameyso? Mida ugu horeysa hooyada waxay dareemaysaa culayskaas hore u soo sheegna wuxuu sababi karaa ama kabaabiyo ama barar lugaha ah. Waxaa wanaagsan inay hooyada position-ka ama qaabka ay u jiifto ay mar walba ay isbedel ku sameyso. Hadday isku aragto barar waa inay la xiriirto dhakhtarkeeda si ay u ogaato cilada keentay inuu yahay culayska uurjiifka ama inuu jiro cadaadiska dhiigga oo kacsan iyo wixii la mid ah. Isbedelka ku imaanaya maqaarka hooyada waa wax caadi ah oo xilliga inta ay uurka leedahay oo idil ayay isku arkaysaa. Waxaa wanaagsan inay biyo badan ay isticmaasho. Mana jiro calaamadaha caloosha ama ka soo baxayo waxyaabo ka hortaga oo badanaa looga hortagi karo marka laga reebo in hooyada ay ku dadaasho qubeyska oo biyo diirimaad ah oo yara qandacay ay isticmaasho.
maadaama aan soo sheegnay in hooyada miisaankeeda uu aad isku bedelayo 3 bilood dhexe oo weight gain zaaid ay sameynayso oo miisaankeeda uu kordhayo, waxaa wanaagsan hooyada inay kontaroosho cuntooyinka ay isticmaaleyso, inay iska yareyso cuntooyinka ay ku badan tahay sokorta iyo carbohydrate-ka, waayo miisaan xad dhaaf ah ayay hooyada saarayaan. Haddii uu jiro walwal ama stress aad dareemeysid, iska jooji gabi ahaanba ama iska yaree waxyaabaha kuu keeni kara ka hortag, waayo xilligan camal iyo wixii ka dambeeyo ilaa 9 bilood waa xilliyada hooyada lagu arko waxa loo yaqaano dhiig karka uurka. Marka gabi ahaanba wax kasta oo walwal iyo fakar iyo stress kuu keeni karo ka dheeraaw oo ka fogaaw. Cunto walba aad qaadato oo aad isticmaasho waxaa kula wadaagaya uurjiifka, miisaankiisa wuu kordhayaa oo waxaa ku darsoomaya maalin kasto. Sidaa awgeed waa inaad kontarooshaa cuntooyinka aad qaadanaysid oo ku dadaashaa cuntooyin leh fitamiino. La soco dhakhtarkaaga si mar waliba uu kugu sheego miisaanka kugu habboon, cuntooyinka aad qaadan kartid, waxyaabaha uurjiifka u fiican. Sidoo kalena aad la socotid xaaladda caafimaad ee uurjiifka, HB-gaaga ama dhiigaaga inta uu yahay, nooca dhiigaaga iyo wixii la mid ah. Mar walba ku xirnaaw dhakhtarka si isbedelada kugu imaanayo aad ula socoto. Haddaad dareento xaalad caafimaad daro sida barar, indho labo ku noqonayo, waxyaabaha la mid ah, ayadana la xiriir dhakhtarka. Si la mid ah, hooyada waxaa qasab ah inay dareento dhaqaaqa uurjiifka 3 bilood dhexe. Haddaa weysid ama aad dareemi weysid, waxaa dhici karta inay jirto xaalad caafimaad daro. Sidaa awgeed la xiriir dhakhtarkaaga si loo ogaado meesha ay wax ka qaldan yihiin. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan ku soo biir YouTube-keena. Mahadsanid.